بسم الله الرحمن الرحيم كلمتان قبل waxaan rabaa inaan ku biiriyo arintii ka dhacday magaalada la yiraahdo Laascaanood oo runtii ahayd arin aad u xanuun badan oo Soomaali meel kasta ay joogto taabatay ma ahayn arrimaha noocaas inay soo noqnoqdaan hadda ka hor bay dhaceen magaalooyin Soomaaliya kamid ah dad Soomaaliya laga tarxiilay dadka Soomaaliya sharaf iyo karaama ay leeyihiin oo isu baahan yihiin magaalo kasta oo Soomaali ay degan tahana dad bay u baahan tahay magaaladaas magaaleeya oo dega oo guriga ka gata oo dukaana ka furta oo ka shaqeeya oo mashaariic wax ku oola keena oo Soomaali oo dhan ka kooban haday doonto dawladaha dadka yimid oo xataa aan Soomaali ahayn oo xataa aan Islaan ahayn bay u baahan yihiin oo wax garad ah oo aqoon leh oo ay kula dhaqmaan bini aadanimada Ilaahay wuxuu leeyahay walqad karamna bani aadam bini aadamka Ilaahay waa karaameeyay bani aadamka wax tarkaana waad u baahan tahay ama business hayaqaano ama farsamo kale oo gacmeed hayaqaanee dadka wax tarka ah magaalada adigu aad degan tahay oo yarta ah baa kun nool oo ku noolaan doonto ayaa u baahan dadka u baahan marka in la tarxiilo ma budna in la siyaasadeeyana ma budna oo ma aha oo sax ma aha dib iyo foolxumo hore u dhacday in la soo celiyo oo Soomaali lagu soo celiyana sax ma aha horeyna ma budna magaalooyinka farsamada ka jirto oo dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo oo dadka dariskooda oo la degan oo isku midka ay yihiin la yiraahdo guri kama gadan kartaan business kama samaysan kartaan dhul weyn ma gadan kartaan maxaa ma degi kartaan wax kama qabsan kartaanna Laascaanood kaliya maaha marka inta la sheego magaalooyin fara badan ayay ka jirtaa waxa kamid ah magaalooyinka runtii aan rabo inaan clipkan ku soo daro oo aan farsamada noocaas oo kala ku arkay magaalada la yiraahdo Goldego oo aan wax badan tagay Laascaanoodna waan tagay sanadka dhaweyd ceergaabo iyo ilaa iyo Hargeysa ilaa iyo Wajaale ilaa iyo Soomaaliya meel aan tagin way yartahay marka waxyaalo badan baan ka ognahay marka ururada bulshada ka shaqeeyana runtii waxay la socdaan macluumaadka Soomaaliya waxay u baahan tahay oo badan bay la socdaan og yihiin waxyaalaha aan meelahan ka liidano dhamaan u jeedno ognahay Soomaaliya waxay u baahan tahay dad bay u baahan tahay wax tar leh Soomaaliya waxay u baahan tahay population wax soo saar leh oo business laga sameeyo oo dadku ay ka ganacsadaan oo wax qabad leh oo dhismo leh oo magaalo kasta u baahan tuulo kasta u baahan dad ma joogo Soomaaliya badan magaalo kaliya oo dadka degan meeshaas ku magacaaban reer hebel baa degan la dhahay magaalooyin kalena ma jirto waxaan leenahay marka oo ku soo celcelinayna markasta dadka Soomaaliyeed ha gartaan inay dad u baahan yihiin oo Soomaaliya qaaradda Soomaaliya intay degan tahay calaamada 7 ka dad bay u baahan tahay geedaha ayaa ku badan dadka aan wax tar ka lahayn oo inay wadanka burburiyaan fool xumeeyaan ayaa ku badan dadka wax soo saar kale oo wax qabad kale oo ganacsiga iyo farsamada iyo diinta iyo maxaan ku raayay wacyi gelinta iyo akhlaaqda ka shaqeeya Soomaaliya waa ku yaraadeen marka runta la sheego hadaysan yaraanina gadaal bay fadhiyaan marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ha gartaan inay dad u baahan yihiin inay dad tarxiilaan oo baahna dadka Soomaaliyeed magaalada Laascaanood degan shacabka degani arinta ma sameeynin dad farsamaysan oo maxaan ku raadaa meelo kale laga soo abaabulay baa sameeyay foolxumay soo jiideen magaaladii foolxumay soo jiideen magaalooyinka kale oo la mid kaana waxa looga baahan yahay inay wax ku qaataan oo isaas kale aysan dhicinin dad masaakiina oo cayrooyin ah oo caruur haysta oo dhiban oo wax soo saar qaadkood leeyihiin oo ganacsiga magaalada ku haysta oo dad sharaf leh oo Soomaaliyeed ayaa la tarxiilay oo khasab lagu kaxeeyay inta guriga lagu soo dhacay ayagoo maryahoodii qaadan oo kabahoodii gashan baa la kaxeeyay wax laga xumaaday way arin aad baan uga xumahay waxaan ka xumaanaa meel kasta oo Soomaali lagu dhibaateeyo waxaan ka xumaanaa South Africa Soomaalida lagu gubo ama lagu burburiyo ganacsigooda ayaan ka xumaanaa aan ka hadalnaa maalin kasta waxaan ka hadalnaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan qabiil lahayn ee Canada gangs ku laayaan iyo kuwa Mareykan lagu laayo ayaana dhiba inay Soomaaliya ku soo guriyo noqoto oo dadka Soomaaliyeed ugu qiimaha badnaa oo wax soo saarka badnaa oo magaalo kasta u baahan tahay tuulo kasta oo tagay Soomaaliya dadka wax soo saarka leh oo dukaamada leh oo dharka iyo kabaha iyo bagaashka iyo waxay u baahan tahay keena oo gadaha oo magaalada dhisa suuqyada dhisa waa dad ka soo jeeda meesha la yiraahdo South West ama Baydhabo dhinaca ka soo jeeda way waana dad Soomaali ah way dad muslim ah oo walaalo ah way dad aan u baahanahay way dad aan ka xunnahay in la dhibaateeyo way assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta soo koobahaya runtii clipkan mid ka dheerana soo duubaan rabaa hadii Ilaahay idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh